waxaa maanta si rasmi ah xilkii ula wareegay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee dhawaan uu u soo magacaabay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro waxaana xilka wareejinaya wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland kana tirsanaa xukuumaddii hore ee Muuse Biixi Cabdi munaasabadan waxa ay daaranayd xil wareejinta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasiiru dawlaha waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hay'adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada shaqaale weynaha qaar ka mid ah maayirada dalka gudoomiyayaal iyo dhammaan bahda waxbarashada qaranka waxaana munaasabadan ugu horeyntii ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland wasiirka cusub wasaaradda waxbarashada wasiiru dawlaha cusub wasiirkii hore aanu soo wada shaqeynay wasiir xigeenkii wasaaradda oo maanta u fadhino halkan xafladooda xil wareejinta anigu waxaan u kacay waa soo dhaweyn maanta xafladan xil wareejinta oo runtii munaasabad taariikhi ah dalka doorasho ka dhacday xukuumad cusub timi vision cusub iyo aragti cusub timi waxa aynu maanta bilaabaynaa in wasaaradda waxbarashada ay noqonayso wasaarad maanta wareejinaysa xilkii kuna wareejinaysa maamul cusub iyo siyaasad cusub geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xilka wareejinayay waxaanu ka waramay muddadii uu joogay wixii uu qabsoomay waxaanu soo dhaweynayaa isla markaasina hambalyeynaya wasiirka cusub mudana wasiir iyo wasiir dawle iyo dhammaantiin intiina joogta halkan waxaan rabaa inaan yar tilmaamo ayaa aqoonyahanka badan ka soo qayb galay wasaaraddu sida agaasimaha guud sheegay wasaaradaha ugu ballaaran ayay ka mid tahay waxaa hoos yimaada intaas oo aqoon iyo garaad ummadda lagu soo kobcinayo waxaan rabaa inaan u yar sheego wasiirka cusub wasiir waxaad naga gudoomi doontaa 2450 iskuul oo ku kala yaala daafaha dalka oo dhanba oo hoose dhexe iyo sare kala ah waxaad kugu soo wareejinaynaa tirada waxbarashada inoogu jirta maanta keejiyada oo runtii wax aad iyo aad noogu cusuba waxaa dhigta 19970 arday baa dhigta waxa weeye dugsiyada hoose dhexe waxaa dhigtaa 441,329 arday baa dhigta sidoo oo kale dugsiyada waxbarashada degdega ama ABE-yada la yiraahdo waxaa dhigtaa 7,580 arday baa dhigta mudana wasiir waxaan kugu soo wareejinaynaa maamulka iyo hoggaanka dugsiyada sare tirada dhigataana ay yihiin 3,468 sidoo oo kaleeto dugsiyada farsamada gacanta oo ay dhigtaan 1,426 waxaan runtii aad iyo aad kaaga mahadnaqayaa in aad intaasi sharaf leh noogala wareegto sidoo oo kale tirada guud ee ardayda dalku inay 600,000 ay madaxa la gashay oo ilaahay idinka rajeynayno inay sii kobcaan maalin ka dambaysa sidaynu wada ognahay waxay bixisaa adeegana waxay siisaa ardayda waxa si toos ah adeega u fuliya macalinka marka wasaaraddu waa wasaaradii macallimiinta marka aynu tayada macalinka kor u qaadno ayaa aqoontuna ay kor u kacaysaa arday aqoon leena ay noo soo baxaysaa taas ayay ahayd arrimaha aanu ku dadaalaynay muddadii aanu joognay inkastoo anigu muddada aan joogay aad u koobnayd sida halkan laga wada sheegay macalinka maadaamaaynu muhiimadiisa wada ogsoonnahay anigu arrimaha farsamada ee wasaaradda ma gudagalayo waxa aanu dhaafayaa wasiirka waxaan ku talin lahaa wasiirka cusub iyo wasiiro dawlahaba aan kula talin lahaa si qiimaha macalinka loo ogaado in wasaaradda shantii macallin ee ugu horeeyay Soomaaliland
magacyadooda iyo sawirrada goob walba la dhigo ilaahayna naxariistii janno ha ka waraabiyo maxamuud axmed cali yuusuf ismaaciil gaandi maxamed shiragaab yuusuf xaaji aadan iyo cabdisalaan dhammaantood way geeriyoodeen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waynu ducaynay halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka cusub wasiiru dawlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee cusub waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ii igmaday inaan wasaaradda tan hormood u noqdo runtii aad baan uga mahad celinayaa xilka weyn ee uu igmaday waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ii fududeeyo xilka oo igu astiro waa xil aasaaskii bulshada ah ummadda ah cid walba ah waa meeshii laga soo unkamayay waa meeshii wax ka bilaabanayeen waxbarashadu qof kasta way taabanaysaa soo saarista bulsho ku gaashaaman waxbarasho tayadeedu sarreyso xirfad waxtar leh iyo aqoonta lagama maarmaanka u ah in la helo oo buuxin karta baahiyaha shaqo iyo horumar ee dalkeena ayaa gundhigu ah waxbarashada aanu doonayno inaan ku hogaamino wadankan haddaanu nahay xukuumaddan cusub waxaan halkan salaan uga dirayaa madaxda wasaaradda oo ugu sareeyo wasiirkii hore Dr. Buuxane wasiir ku-xigeenka agaasimaha ilaa qofka ilaalinaya meesha wax lagu baranayo ama galaaska wax lagu baranayo salaam baan idin leeyahay waan idin soo dirayaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida aad fulinta haddii ilaahay raahdo siyaasadda maxay dawladdu ay dejisay insha Allah shanta sano ee soo socota oo ay koob ka tahay kobcinta manhajka dib u habaynta falsafada waxbarashada laga leeyahay horumarinta tiknoolajiyada oo micnaheedu tahay inaynu waxbarashada ku dadaalno inay digital noqoto